waxaa maanta noo qabsoomay allama haddii kulankii agaasimayaasha guud dowladda oo hadda ka hor seminaar 4 maalmood qaatay waxyaabihii lagu heshiiyey ama kasoo baxay fulinteeda lagu mashquulsanaa. maanta kulanku wuxuu qaadaa dhigayay waxna iska weydiinayay xilligan hadda la joogo sida agaasimayaashu ay si hufan ugu gudan karaan shaqadooda farsamo adduunka marka loo khidmaynayo shacab lana qabanayo shaqo ay muxuuha dawladii ku dirsatay oo aad dalkaaga u adeegayso. waxaa waajib ah dadka xirfadlayaasha ihi in ay shaqadooda ku qabtaan xaalad walba oo uu dalku ku jiro. agaasimayaasheena oo ah laf-dhabarta dowladnimada iyo fulinta adeega dalka ayaa waxaa muddaba ka go-nayd in shaqadooda aanay xaaladaha dalku maraya saameynin ee ay fuliyaan wax alla wixii waajibahee saaran. shirka maanta marka waxaa qorshihiisa iyo qodobadiisu ay ka koobnaayeen bisha luulyo oo hadda bilaabatay iyo ilaa December shaqooyinka mudnaanta leh ee ay dowladdu qorshaysay wasaaradaha kala duwanna in ay fuliyaan looga baahnaa oo ku qotoma qorshaha horumarinta qaranka loona adeegsado hannaanka tubaha ee ay dowladdu u nidaamisay. saa daraadeed waxaa kasoo qayb galay 22 agaasime oo si fiican u falanqeeyay waajibaadka saaran iyo nooca ay yihiin iyo sida ay u fulin karaan xaaladda maanta lagu jirana haddii ay noqoto shaqaalaha iyo shaqadooda adeega ay wasaaraduhu hayaan qaabka loo fulinayo qorshayaasha dowladda aanu haba yaraatee ilimka ilaahay waxba iska dhibi dooneen qaabka ay shaqadu u socoto. xaalad walboo jirtana ay u dhabar adaygi doonaan in ay fuliyaan shaqooyinkii qorshaysnaa ee wasaaradaha u yaalay. waxaan ka codsanaynaa cid walba madaxda dowladda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada inay agaasimayaasha iyo shaqaalaha rayidka ee dowladda ku garab istaagaan adeega ay u fulinayaan dadkooda iyo dalkooda oo waajib kulligan inay wada saaran ah in si toos ah had iyo jeer ay mas-uuliyaddooda uga soo baxaan.